warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo fiidkii hore ee caawa ka dhacay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu si gaar ah uga dhacay xerada tababarka ciidanka booliska ee General Kahiye, halkaas oo ah goob amnigeeda si aad loo ilaaliyo. waxaa jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay qaraxa sida ay noo sheegeen saraakiil ciidan iyo sidoo kale maamulka degmada Xamar Jajab. inta la og yahay qaraxa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan hal ruux, halka dhaawacu ay sii cagacageenayaan 7 qof kuwaas oo isugu jira askar iyo shacab ku sugnaa maqaaxida la qarxiyay oo ka soo horjeeda irida laga galo xerada ciidanka booliska ee General Kahiye. ma jirto weli wax mas'uul oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta kala hadlay qaraxa iyo qasaarihiisa, iyadoo saraakiisha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee gobolka ee tagtay halka qaraxa uu ka dhacay ay ka gaabsadeen inay wax macluumaad ka siiyaan warbaahinta qaraxa iyo qasaarihiisa. gaariga qaraxay oo ahaa nooca raaxada ayaa waxa uu ka soo gudbay kontaroolka laga galo xerada ciidanka booliska ee School Buluusiya, iyadoo aan la ogeyn sida uu gaariga kontaroolkaas ku soo dhaafo oo lagu baaro gaadiidka galaysa xerada ciidanka booliska. halka qaraxa uu ka dhacay waa wadada sida aadka uu isticmaalo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo marka uu ka duulayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ama uu ka soo degayo. waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in halka qaraxa uu ka dhacay wax ka yar 10 daqiiqo marka qaraxa uu dhacay ka hor ay gudbeen kolonyo gaadiida oo galbinaysay taliyaha ciidanka booliska. lama oga bartilmaameedka inuu taliyuhu ahaa iyo in kale. qaraxan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay xiran yihiin inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho wax ka badan 7. sidoo kalena shalay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Zakiye Xuseen ee sheegtay in Muqdisho uu soo galay gaari baraado ah kaas oo ay ka soo buuxiyeen shabaab waxyaabaha qarxa. lama oga gaariga qarxay inuu mid ka ahaa iyo in kale. Cabshakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho.